munaasabaddan ay ka soo qayb galeen odayaal waxgarad ururada haweenka bulshada qaybaheeda kala duwan oo ka dhacday magaalada Buuhoodle ayaa waxaa lagu taageerayay musharax Maxamuud Yuusuf oo u taagan qabashada xildhibaannimada baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya 2022-2025 waxaana halka ka hadlay odayaashii iyo marti sharaftii ka soo qayb gashay munaasabadda ayagoona taageero buuxda u muujiyay murashaxan u taagan qabashada xildhibaannimada 2025 xasan waa nin reer Buuhoodle wuxuu ku dhashay magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Yaaqshiid sanadii 1972 sidoo kale waxbarashadiisa wuxuu ku qaatay magaalooyin kala duwan oo Soomaaliya iyo dibadda haddaan ku bilaabo dugsigiisa hoose wuxuu kaga baxay magaalada Baydhabo dugsiga dhexe wuxuu kaga baxay magaalada Muqdisho dugsiga sare wuxuu kaga baxay waddanka Sweden magacaabadiisa Stockholm sidoo kale jaamacadda waxa la yiraahdo digriga koobaad wuxuu ku diyaariyay waddanka UK magaalada Bristol University ayuu ka baxay waa dhakhtar sidoo kale wuxuu takhassus ku diyaariyay isla jaamacadda laftirkeeda oo ka haysto shahaadada magisterka oo radiology marka Dr. Maxamuud Yuusuf Xasan haddaan xagga kaga baxo aqoontiisa waa nin shaqooyin badan soo qabtay oo deegaanka soo shaqeynay ilaa laga soo gaaro dawladda carta ee 2000 ayuu soo shaqeynay oo xafiisyo kala duwan ka soo shaqeeyay haddaan ku hormaro dawladda wuxuu ka soo noqday chief protocolkii xafiiska ra'iisul wasaaraha sidoo kale wuxuu noqday waxa la yiraahdo cabinet secretary ayuu ka soo noqday oo ah xogayaha guud ee golaha wasiirada ayuu soo noqday bacda salaan musharax xildhibaan Maxamuud Yuusuf oo u sharaxan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xildhibaankeeda shaacintiisu aynu isugu nimid waa soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa dhammaantayana waxaan leenahay allaha ku guuleeyo xilka ballaadhan ee uu isu xilqaamay muudna waa soo dhaweynaynaa soo dhawow baan leenahay musharaxnimadaada ku soo dhawow soo dhawow baan leenahay waana ku soo dhaweynaynaa xilka aad isu sharaxdayna waa isku ka garab taaganaa wixii anagu tamartayada waa isku ka garab taaganaa Maxamuud Yuusuf Xasan waa soo dhaweynaynaa si fiigiisa u akhriyay dadka waxa laga yaabaa qaar reer hadda ugu horeyso iyo si fiiga u akhriyay qaarna inay aqoon u leeyihiin anigu dadka aqoonta u leh baan kamid ahay muddo dheer Muqdisho la joogay waxa leenahay Ilaahay kursiga ha kugu guuleeyo inuu wax qabanayana waa garanaynaa meesha taala waxa weeyaan waa shaacin iyo duco labada arrimood baa meesha yaala xildhibaanka Maxamuud Yuusuf waa maqlaynay khudbadiisii khudbadaada aad u qiimo badan buu inoo soo jeediyay talana waa tarabi xildhibaan waxa ku leenahay hadii khayr uu ku yahay Allah ku siiyo intaasaan ku leenahay aad iyo aadna waa idin salaamaya assalaamu calaykum qabad iyo runtii maxadin badan bay u soo jeediyeen waa si booreen tii gaarka ahaydna tilmaantaas ay leedahay oo insha Allah xildhibaanada wuxuu dheer yahay doonaya ardaaga labadiisa gacmoodba waxbuu ka rabaa adeerkiina wuxuu diidi maayo abtigiina wuxuu diidi maayo taana saasaan leenahay insha Allah xildhibaan Maxamuud Yuusuf Xasan oo u taagan xilka musharaxnimo aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa taariikhdiisa uu ka warbixiyay dhaqan ahaanna si wacan baa looga warramay waxqabadkiisana kuma koobna bari iyo saadama iyo saakun haddii la wada mid la soo koobi kara maaha ka cuqaal ahaan aad iyo aad baan ugu qanacnay Maxamuud Yuusuf Xasan dhagamadow waxaan leenahay soo dhawow waa soo dhaweynaynaa soo dhawow waana ku hambalyeynaa waan soo dhaweynaynaa xildhibaan Maxamuud Yuusuf Guray waxaan leenahay xildhibaan soo dhawow musharax Maxamuud Yuusuf Guray markii hore waa soo dhaweynaynaa waana u hambalyeynaynaa waana u ducaynaynaa waxa la yiri nin waliba geedku waa tuursadaaye waxaan filayaa in geed weyn ugu waaban yahay geed weyn gobolka Cayn ilmo Yuusuf Guray oo dhamaantood geed weyn ugu waaban yahay shaacintan maanta la shaacinayo xildhibaannimada uu golaha shacabka uu musharaxa u yahay runtii waxa weeye waxaan filayaa anigu aan wax badan ka mid ahay dadka aaminsan ee ku qanacsan taas
waan kuu ducaynayaa xilka aad hayso waxaan kaaga ducaynayaa in ilaahay kula garab galo in ilaahay kugu taageero hadduu khayr kuu yahay in ilaahay kugu taageero hadduu shar kuu yahay in ilaahay kaa qabto baan ilaahay kaaga weydiinaynaa naga saaraya inaynu maxamuud shaacinta iyo xildhibaanka u taagan yahay inaynu uguna ducayno iskuna garab taagno midkaan baa xili naga saaraya wixii qabsoomana ilaahay baa ku shaqo leh waxaana ugu dambeyntii halka ka hadlay musharax maxamuud yuusuf xasan oo ka warbixiyay waxyaalaha uu qaban doono haddii la doorto 12 bilood ugu yaraan 4 ama 5 bilood aan ku shaqayn doono buuhooda gudaha in albaabkaygu talo u furraan doono wadatashi u furraan doono talada xooggeeda aan idinku soo celin doono biidni illaahi tacaala hadday tahay waxbarashada hadday tahay caafimaadka haddaan idinla hadlayaba gacantaan ku hayno wax ka qabadkeedii biidni illaah warar badan oo idinka farxiyana dhagihiinnu insha allahu tacaala waa maqli doona haddaad barateen siyaasi intuu tago xamar aada dibaan idinku soo noqo dee haddaad ii mutaan hawshan inaan qabto waxaan idinka rabaa idinkana meeshaan ku shaqayn lahaa insha allahu tacaala iyo gurigaan ku shaqayn asaasigaan magaalada anigu idin odhan maayo dahab baan cirka ka soo daadinay xaalashaan ma idin dhahay laakiin waxaan idin leeyahay waxaan idinku shaqaynayaa si daacada oo qalbi furan tabartaydu meeshay gaadhsiisana waan gaadhaya insha allah laakiin waxaan idin leeyahay waxaan qabanayaa wax kasta oo qof damiir leh oo dadnimo ku jirta uu qaban lahaa ama laga sugo maxamed cali bile warbaahinta qaranka Soomaaliya Buuhoodle